intii joogtay 7 iyo intii dabadeed dhalatayba ayaantani ayaan nagu weyn way waayantii gobonnimadeena way ayaantii qarannimadeena way ayaantii gumeysbaxa way ayaantii xornimada way xasuusteedu inay qalbigeena mar walba ay ku jirto ayaa waajibna u ah ilaa xalay dabaldaga si wanaagsan baan ayaad ula socoteen ama aad uga qayb gasheen waxaan jecelahay munaasabadan inaan hambaliyo gaar aan u soo jeediyo raadiyoga iyo telefisyoonka Djibouti madaxdeeda iyo shaqaalaheega labadaba sida ay agar la'aan dadka u soo gaarsiiyeen wadanka dhamaantii wixii ka dhacayay dabaaldeg inay si wanaagsan ay dadkeena u tuseen ula ciideen u soo baahiyeen warbaahintana telefisyon iyo raadiyoba si wanaagsan ay ugu soo tabiyeen waxaan leenahay hambali waxaan isleeyahay doorashadii noogu dambeysay markii aan ka soo baxnay waxaa nagu bilaabmay xoogaa qalalaasa mucaaradka oo iska diiday natiijooyinkii 10 sano isaga oo ka maqan doorashada isaga oo meedaanka ka maqan ayuu haddana yidhi maantana iwaykan maantana waan cadhoonaya inuu sii cadhoonayana waa sii garanaynaba kolka waxaa dee aad la socotaan oo dhacaya maalin khamiis iyo maalin jimca iyo ma garanaysaa sawirro yaryar soo qaado oo wari taswiir xageed geynaysaa Facebook aan ku ridayaa waxaan u geynayaa Twitter maxay baan u geynayaa bon dee waxaasi wax dalka wax u tarayana maaha nabadna keenaya maaha colaadna sii abuuraya weeyaan maxaa yeelay dawladdu hawsheeda way iska qabsanaysaa dalkana 36 sano ayuu xor yahay boojee xor waxa uu yahay maxay la yiraahdaa faranji iyo dawlado kale iyo dadka imika la leeyahay aan arkaan way noo soo socdaan way qaban doonaan maxay bay ku sameyn doonaan been iyo balaayo weey been iyo balaayo waxa waan ku xoroonay bari hore marka nabadda anaga jecel anaga iyo doorayna wada hadalka anaga iyo niri kaalaya anaga iyo imikana le kaalay aan wada hadalno anaga walaalnimadu waxay ku jirtaa wada hadalka aan wada hadalno waan heshiino way saasana qaanaano waxa se muuqata in ay dadkani ku dhex jiraan dad aanan nabadda doonin dad aanan is araga doonin dad aanan wadaninimadu aanay meel kale looga suul dhawaanayay anigu ma garanayo laakiin waxaan se filaya in soo noqday aqligii inuu soo noqday iyaan u maleynaya waxaan rajaynaynaa inaan daraar dhow aan wada hadalno haddii wararka aan helaynay ay sax yihiin inaan arrimaheena horay baan u dagaalanay horay ayaan u dagaalanay dhiig baan daadinay walaalaha islaay faranji meel kastaba uu soo maray inuu na soo dhex galo anaani dhexdhexaadinayna waan iska diidnay annaga umba dhamaysan annaga heshiiskii xidhnay tan ka daran ayay ahayd waanan xidhi karnaa nabaddaas diyaarna waanu nahay xuska gobonnimada ayaan ku soo noqonaya inaan dee halkaa aan ku kala tagno annaga oonan dadkii gobonnimada u dhintay dadkii u gurya beel dadkii u dhaawacmay
dadkii u naafoobay annagoonan xasuusanin oon faatixada u marin intii dhimatay ayaan ni weydiisanaynaa. xasuustaas mar walba inaan xasuusta hayno ciyaalkeenna carruurteenna aan ku barbaarinno aan xasuusino waajibkeenna wey. annagu waxaan ku jirnaa kuwa sii socda, kuwan iminkana daba socday inay naga reebaan ayaguna ayaan doonaynaa. waxaan doonaynaa waddankeennaasi inuu waddadiisa ku joogo, horumarkiisa ku tallaabsado. nabad buu u baahan yahay, xasilooni buu u baahan yahay, midnimo u baahan yahay. intaba waan awoodi karnaa sidaan waqtigan waqti ka xun aanu awoodin. waxaan idinkaga tagayaa sanad wanaagsan, ciid wanaagsan, dalkeennu ha noolaado, ummadeennu ha noolaato. assalaamu calaykum waraxmat ullah.